بسم الله الرحمن الرحيم horta waxaan u hambalyeynaya aan u mahad celinayaa ugu horeyn ra'iisul wasaaraha oo hawshan runtii isu xil saaray iyo wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka iyo guddiga halkan ku yaala iyo oo de ku jiraan wasaaradaha kala qaybaha kala duwan iyo dhalinyarada halkan fadhida oo runtii subax walba isku howla sidii ay dib habeyntaan ay u noqon lahayd mid guul ah successful ah runtii aad baan kulligiin idinku hambalyeynaya anigu runtii waxaan ogaaday in ciidamadu aysan fayl lahayn markii aan tegay wasaaradda gaashaandhigga markii aan iri taliyaashii ciidanka hogaaminaya feelashin ii keena aysan feelo lahayn waan iri askarta ka shaqeysa xafiiska personaalka ama xafiiska ciidanka taliyahii joogay feelkaaga ii keen uusan feyl lahayn yaa waxay caddaatay in loo baahan yahay dib habeyntan iyo reformkan oo degdeg in loo sameeyo marka runtii aad iyo aad yaan ra'iisul wasaaraha uga mahad celinayaa siduu isugu xilsaaray uu guddigan u sameeyey haddana aad sheegaysaan tirada ciidanka in uu ku dhow yahay dhammaad tirakoobkooda oo electronic ah iyo galkan marka waxaa yaab leh haddii aan horey loo haynin gal uu ku yaallo qofka sawirkiisa magaciisa oo buuxa garaadihiisa meesha uu joogo haddii looga baahan yahay inuu howlgalo dekreetada uu haysto mid sax ah miyaa mala ganaaxay shaqo wanaagsan ma qabtay oo runtii oo abaalmarin ah dee qof aan fayl lahayn see loo odhan karaa ciidan uu ka tirsan yahay ya runtii waxaad gaarteen guulo runtii taariikhi ah yaa gaarteen waana meesha ay ka bilaabanayso dowladnimadeenna iyo la dagaalanka musuqmaasuqa maxaa yeelay see mushaar loo bixiyaa haddii ciidankii aan la garanayn haddana waa ku mahadsan yihiin saraakiishii nagala qayb gashay iyo askartiiba inay ogolaadaan in la maro sida saxa ah oo askariga dhabta ah iyo meesha uu joogo iyo garaadihiisa in la hayo si aan u ogaano yaa shaqayn kara oo diyaar ah iyo yaa howlgab ah iyo yaa maxaan ku rahdaa curyaan ah oo u baahan in maaragtay la daryeelo marka runtii waa horumar weyn oo la gaaray insha allahna aan xoojinno hala adkeeyo oo hala ilaaliyo systemka hala ilaaliyo maxaa yeele tan hadda systemkii la dhisay haddii la dayaco oo waxa laabaan wixii la qabtay waxaa weeye waa hal bacad lagu lisay marka in la ilaaliyo oo tiim adag loo sameeyo oo ka shaqeeya tan labaadna saa sheegteen dee waxaa noo bilaawday e-government electronic government oo qofka markuu gacanta saaro la og yahay xaaladda uu ku jiro iyo meesha uu joogo iyo hadduu fasax qabo saa sheegteen hadduu meel aadayo inuu fasax qabo hadduusan fasax qabin hadduu dee meelaha iska socdo ma nin soo goostayba ya mise waa nin shaqo u socda marka runtii waa horumar aan gaarnay aan xoojinno horumarka